dabayaaqadii 2012 ayay ahayd markii la doortay golayaasha deegaanka ee degmooyinka iyo weliba magaalooyinka waaweyn ee waddanka Hargeysa oo caasimad u ah degmooyinka iyo weliba magaalooyinka waaweyn ee waddanka ayaa shacabka ku dhaqan degmooyinka magaalada Hargeysa ay cabasho ballaaran ka muujinayaan waxqabad sida baahiyaha asaasiga ee degmo walba iyo xaafad walba loogu talagalay inay xaq u hesho waxaana waanayeen golaha deegaanka ee hogaamiyo Cabdiraxmaan Solteeko shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaan maanta mikrofoonka la dhex qaadnay waxaana ay farta ku fiiqeen baahiyaha asaasiga ee ku qotoma nolosha bini'aadanka iyo sidoo kale baahiyaha asaasiga ee degmooyinka ka jira shacabka kala duwan ee magaalada Hargeysa oo badda cas la hadlayay ayaa fariin codsi u diray golaha deegaanka ee degmada Hargeysa ee waqtigoodu si dhamaanayo tahay ganacsatada yaryar ee Hargeysa laamid wax ku iibsatay iyadoo ay cashuur ka gurto haddana habeen iyo maalin ay askar soo adeegsato fair iyo laad ay ku waaraan waa talabaad oo wadooyinkeen iyo burbura labadii wada ay dhistay 1 iyo 2 ay dhistay maalmihii dhawtoolana ay halka deeg fariiq ka qaadaan wax dib eegis wax kale aan ku sameyn Allahumma salli ala Muhammad nadaafadii wadanka magaalada aad u xun oo u liidata runtii cashuurun bay gurataay waxay qabataa wayartaa dowladda hoose iyo waxqabadkeeda anigoon ku hadlayn ama mucaaradeen dowladda hoose laakiin xaqiiqada jirta waxa weeye dowladda hoose waxyaalo badan ay ku fashilantay baa jirta ay ka mid tahay wadanku isagoo bilaa camal yahay oo dhalinyaradu ay tahriib ku yaacayso ayaad wax dareemaysaa xilliga ay tahay casarada oo kale dhalinyarada suuqa ku iibsata ee kaariyoonayaasha oo kale inay teediyaan oo askar soo adeegsadaan sidoo kale ferilaad la dhaco oo la geeyo kaariyoonahoodii meesha dowladda hoose oo lacag laga qaado ganaaxa arday qofkii dhalinyarada ah isagoo macnaha shaqada hayn oo shaqo la'aan ay haysay oo kaariyoonaha wax ka eegay in dowladda hoose xoog u adeegsato sidoo kale waxa dareemi kartaa suuqyada waaweyn ee Hargeysa ama laamiyadii ka highwayga number 2 uma inta kale oo dhan waa burbureen ama waa baaba sidoo kale wadooyinkeena aad iyo aad u xun yihiin dowladda hoose waxaan oran karaa dhaqaale iyo cashuur bay ka qaadaa dadka ka urursan maahay wax qabado meesha jira ma baahna waxaan u baahan tahay Hargeysa iyo Soomaaliland gabi ahaanteedba dowladda hoose oo wax ka bedeshay magaalooyinka bilicdooda soo saarda Hargeysa muuqeeda iyo macnaha quruxda ay lahayd maanta ka sidamba soo sulmaysa muhiimadu ma aha in wadada habeenkii la xaaray wuxuu baahan tahay Hargeysa shaqada wada la xaariyo ka badan ayay sugaysaa insha Allah dadii wadada ka soo dayacanta kowdhe maayirkuna meel alaal meel ku sugiyo meel ku joogina lama arko kowdhe anigu waxa iga talaa in dowladda hoose waxa loo doortay in caasimada hagaajiso bilicdeeda iyo nidaamkeeda anigu waxaan oran lahaa kula dadka dhaqaale laga gura cashuura laga gura oo damiskaad arkaysa cashuura laga gura kowdhe oo guryaha arkaysa cashuura laga guray war dadkii lacagta laga guray xagga la geeyaa wadooyinka dowladda hoose waxaan u arkaa inay horta shacabka ka baahi tirin waxyaabihii ay u baahnaayeen waxyaabihii adeegii bulshada sida biyihii laydhkii caafimaadkii wadooyinkii iyo waxyaabihii la midka ahaa maanta dadweynaha shacabka Soomaaliland ma haystaan maanta waxaad arkaysaa nin askariya oo askarta ku jira oo ubadkiisa iskuul laayiin oo hooyi kiriya ku jira oo dhul haysan marka waxaan oran lahaa dawladda hoose anuu fikirkayga rayigayga anoo shakhsi arrimaha bulshada ka hadla una dhuun daloola wax alla yaala waxay qabatay oo sax ah marka laga reebo wax yar ma jiraan baan oran lahaa sidoo kale waxaynu ognay dawlad cali cabdi jaabacada qamaacir iyo sawir qaasar Axmed Jiti telefishinka badda cas